السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تبعنا وناكسن مدكل إيفيز عصب جنال كادنا جلس عتان وأمسين جنال نجوا أمسين سودوادا ما وناكسن هبي وناكسن صباح وناكسن ظهر وناكسن كل شيء وناكسن أصحاب تبغى سودوادا أصحاب تورلي جكسر سودوادا لما أنتي سودوادا لما أنتي بوحيد بودي جعلها إن شاء الله بليز جنك تبغى سبسكرايب لايك شير كومنت سحب الله دقيقة ما صدقها سبسكرايب تكون سريع نو لايك قريء نو شير قريء لما تمسكتي لما أنتي نويد بودي جعلها إن شاء الله ما أنتو حنوضع مركلة إيو برنامجكي إلى تلذي قيبت إنستغرام كويلي نو سعته سو مركا مادام إنستغرام فريمها إيال إيهن أو حد كبه وايه waxyaabo far badan ay ku jiro qaar badan waxa arkay Q&A ama su'aalo iyo jawaabo su'aalo badan oo la soo weydiiyo kaas waxa fiidooyo gooni waaye soo markaa insha Allah qaybta ila talidaan wadnaa haduu Ilaahay raado waxaan rajeynaa qaybta su'aalaha haduu Ilaahay raadana soo sameeyo bal maskaxdaada maxaa ka dhex guuxa weydiin lahayd ama aad ka ogaanad umuseyn Instagram-ka noogu soo reeb Instagram-ka taadiin soo saara marka insha Allah noo bilaaba maanta waxa waaye insha Allah waxay ku saabsan tahay wiil lagu magacaabo Ali ya Ali wiilka wuxuu yiri salaamu calaykum walaashay ku salaamay adiga iyo dhamaanba faniska ku xiran YouTube-ka Umseen Channel lamaantiinba salaamu calaykum wa calaykum assalaam walaalka waan ka qaadnay salaanta dhamaan ana u qaaday asxaabta dhan wuxuu yiri waxaan ahay magacaygu waa Ali waxaan ku suganahay dalka Masar waxaan ahay arday wax ka barta Masar waxaan tagay Masar dhamaadkii 18kii ama 2018 dhamaadkiisii wuxuu yiri 20gii waxaan internetka ka bartay Facebook aan ka bartay gabar waliba gabadhaas oo joogta Boorama wuxuu yiri gabadhaas ani ayadu waxaan dad aad isku jecel waliba aad isku kalsoon isbarasho dheer kadib jacayl iyo waxaan dhaxmartay kalsooni laakiin wuxuu yiri in gabadha waxaan ka dareemo yiri mushkilad inay ka jirto dhankeeda dhowr mar ayaan waxaan kala hadlay wuu yiri arrimaha guurka laakiin ayada wali way iga meermeerinaysaa guur ma aysan ogolaanin sanadkii bishii 10aad isla sanadkaas yani sanadka 2020 bishii 10aad October baa wuxuu yiri waxaan go'aansaday in aan u soo bandhigto guur waliba mar kale aan u soo bandhigto aan ku raad aan isguursano laakiin markii dambena way iga diiday laakiin waxa uu xujeysay buu yiri in aan bixiyo lacag aad u far badan oo meher ah lacag aad u far badan oo aroos ah iyo guur aad u weyn inaan u hagaajiyo anigana intaas ma awoodo oo waxaan ahay qof wax barta ayadana isla sanadkii 2021 wuxuu soo socday Qaahira soo marka waxaan rabay intaysan Boorama ka soo bixin reerka ugu mehriyo kadibna ani ayadu Masar aan wada degno saasna aan u noqono reer wada degan waxna baranaya laakiin lacag far badan iyo waxyaabo far badan ay ugu xujeysay gabadhii aakhirkii wuxuu yiri wax kasto ay ugu xujeysay reerkeeni baan galay walaaladay dibadaha jiray waalidkay wixii oo dhan ku soo laabtay lacagii ay ugu xujeysay qayb kamid ah waan bixiyay markii aan reerkeeda ka doontay oo reerkeeni ee reerkoodii u gogol fadhiisteen baa waxa lagu yiri gabadhan waa gabar ku mehersan wiil waliba waxay ku mehersan tahay 5 sanadood bay wiil ku mehersan tahay wuxuu yiri maalintii reerkeena si ay ugu sheegan bay garan waayeen iima aysan sheegin maalintii hooyaday iyo aabahay iyo reerkeena taleefanku iga dansadeen maalintii ku xigtaan soo wacay buu yiri anigoo aad u faraxsan waxaan ku yiri reerkeena ma idin yimaadeen waxay ugu tiri haa way noo yimaadeen laakiin bay ugu tiri reerkiina akhbaar miyay kuu sheegeen laakiin aniga waxaan ku iri may iima aysan sheegin waxay ugu tiri reerkiina la xiriir reerkiina waxay ku hayn akhbaar farxad leh isla markiiba hooyaday baan waxaan ka wacay buu yiri taleefanka caadiga ah gacanta waa iga qabat wax kastana way ii sheegtay laakiin qalbi jabka ugu weyn waa wuxuu yahay buu yiri lacag aad u far badan iga qaaday bir kasta waxaan u diri jiray lacag ani waxaan ka shaqeeyay mid kamid shirkadaha Soomaalida ee ku taala Qaahira waxna waan bartay gelina shirkadaasaan ka shaqeeyaa lacagta mushaarkayga walaalahay ii soo diraan dhamaanteed ayada ayaan u diraa waxna kama hakrado laakiin waxa igu sameysay ma ah wax noloshayda inta ka dhiman aan ilaabayo markasta oo aan maqlin kelmadda jacaylkan qalbigayga waxa gaaray dhaawac aad weyn ayaa gaaray dhammaan waxaan rabaa Soomaalida waxaan ka codsan lahaa in ay ii soo duceeyaan in Ilaahay qalbigayga ii dhayo walibana uu iiga dhigo mid fiican isla sanadkii markuu dhamaaday wuu yiri markii qalbigaygii aan ducaan u rabaa Soomaali laakiin wuxuu yiri gabadhii saas igama aysan dhamaanin
sanadkii markuu dhashay 2021 ee qaahiro usoo socotay bay isoo wacday buu yiri waxay ugu dhahday birtoola safar baan soo ahay waa inaad madaarka igu soo dhaweysaa anigana waxaan kasoo dhigay buu yiri qof aan walaalanahay walaaltinimo soomaalinimo gabar baan usoo dhaweeyey laakiin markii aan soo dhaweeyo oo aan airportka u tagay oo aan soo dhaweeyo waxaan geeyay buu yiri guri gabdho isaqaanin ay rabtay weliba gabdhihii ay ii tilmaameen gurigii markii aan geeyay oo gabadhii maxay gurigii tagtay dhowr maalin kadib waxaan arkay gabdhaha mid kamida oo aan aqaano weliba aan isku meel wax ka barano markaaba waxay ugu tiri gabadh waxbarasho umaysan imaanin ay halkaan ku aqalgalaysaa cawadana waxaa imaanaya odageeda oo ka imaanaya dalka Mareykanka saas daraadeed marka way aqalgalaysaa haddii adiga waxay kaala dhexeeyaan waa ku kaasaa waxaan ku yiri intaas oo sano ilu goynaysa laakiin ayada ayaa been ii sheegtay in khiyaantay isagana kay dhigtay in ay tahay gabar aan la guursan saas daraadeed marka waan cafiyay waxna uma qabo saas baan ku yiri sidii aan maxay tad gabadhii kaga qoostay aan gabi ahaanba kaga soo tagay magaalada aan ka joogo Masar aan weliba u tagay Qaahiraan deganaa caasimadan deganaa waan ka guuray buu yiri waxaan degoor meel gobol ah weliba Qaahira aad ugu fog si gabadhaas nolosheeda uga baxday aysan mar dambe ii soo raadinin saas ayaana kusoo gabagabeeyay jacaylkii gabadhaas aan u qabay sida ilaa haddana one day qofna kale ma aanan sheekaysan Facebook waayo waxaan ka qaaday shock dhammaan dhalinta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan kaga digo Facebook jacaylka Facebook ma aha wax jira jacaylka Facebook waxaa ka qiimo badan qofka adigoo live u arkaa marka please walaashay waxaad iga gaarsiisaa dhalinyarada Soomaaliyeed in marnaba aysan aaminin qof ay ka shukaansadeen Facebook ama social media haddii gabar noqotona aysan gabarta la aaminin haddii wiilku noqdona aan wiilka la aaminin aan la is aaminin ilaa la is hor imaado waa mahadsantahay walaashay adiga mad walaalkay cali horta wallahi waxa kugu dhacday xanuun badan oo maxay qof inta soo sano aad wada socoteen oo xiriir lahayd inuu qiyaamo walibana oo kulu gooyo oo iyadoo la qabo oo reer la inay horta ku dhahdeen reer malihi oo leema qabo gabar aan horta taas waa daro intan kale wallahi sharafaad leedahay because of gabar saas ku qiyaamta haddana inaad baxda airport ka soo wadid guriga asxaabteeda geysid qof dhaafa la sameyn karo marka walaalkay jazakallah ilaahay waxaan kaaga baryaa inuu qalbigaada kuu qaboojiyo oo maxay xanuunka aad dareemayso inuu ilaahay kaa qaado intan kale waxaan rabaa way jirtaa Facebook dhibaataas way ka dhacdaa Facebook lima social media oo dhan ka dhacdaa in markii maxay xaqiiqdii isbarashada runta markay timaado in qof walba iina far badan lagu arko waxyaabo far badan lagu arko soo marka waxaan dhihi lahaa marka hore marka la isbaranayo haddii aad gabartayna gabarnimadaada ku baro haddii lagu qabana dee stop waa la qabaa maxaa dhacay inaad dhahdid laakiin inaad marka hore welcome dhahdid afterna aad dhahdid inaad isma naqaan taas ma fiicno qofka marka hore sida walaaltinimo marka u baratid markuu kuu soo bandhigta arrimo jecel inaad u sheegtid inaad tahay marwo taasaa qiimo badan intaasay ku dhan tahay walaalkeen cali maxay tad barnaamijka uu noo soo diray dhammaantiin ee wamaasantiin insha allah qofkii raba ila tali iyo wax lamid insha allah igu soo diray Instagram-ka walaalkii cali ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo mid kale oo khayr qabta oo socota oo laweed ku socota oo caafimaad qabta khayr qabta ilaahay irida kaaga soo dileen ku dhaha walaalkay insha allah qofkii raba ila tali qofkii raba qiso ku dhacday inuu ka sheekeeyo qaybta Instagram-ka igu soo diray Instagram-kayga waa kanaha dhammaantiin ma city dhammaantiinba wallah